naagtii kabaha dheerayd. Mar kale waxaan ku leeyahay hadalkii aan hore kuu dhihi jiray oo kale, waxaad tahay saxaabiyad. Waxaa aad u jeceshahay in lagaaga sheekeeyo dumarka ummadihii inaga horeeyay. Waa ku kanaa adigoo u diyaarsan inaad maqasho sheekooyinkaas. Nebigaaga Muxamed ahna uu ku leeyahay markaas. Waxaa jirtay islaan reer Bani Israa'iil ahayd oo aad u gaabnayd. Islaantaas waxa ila socon jirtay 2 naag oo ka dheer iyada. Markaasna waxay samaysatay lugo alwaax ah oo isku dheeraynayso, iyo faraanti dahab ah oo isku daboolmaayo. Dhexdiisana waxay ka buuxisay miski. Markaasna waxay samayn jirtay marka ay soo marto meel la fadhiyo, waxay ruuxi jirtay faraantiga si udgoonkiisa uu u gaaro dadka. Saxaabiyadda, iga dhagayso xaqiiqooyin dhab ah, dhagahaagana ii fur si aan kuu tuso wanaagga diintada Islaamka ah. Dumarku waxay jecel yihiin quruxda iyo isqurxinta 3 sababood awgood. Midda koowaad waa inay mar walba jecel yihiin inay arkaan naftooda oo qurxoon. Midda labaadna waa abuur dabiici ah oo Alle ugu abuuray. Arrinka saddexaad waa inay si aad ah u daneeyaan soo jiidashada ragga, wax ka badan intay daneeyaan ragga iyada. Midda koowaad ee ah inay mar walba jecel yihiin inay arkaan naftooda oo qurxoon. Taasi waa wax wanaagsan, sababtoo ah Alle wuu qurxoon yahay, quruxdana wuu jecel yahay. Sidoo kale Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay nimcadiisa inuu ka arko addoonkiisa. Midda labaad ee ah in dumarka dabci ahaantooda uu Allah subxaanahu wa tacaala ugu abuuray isqurxinta. Taas waa xikmad uu Allah subxaanahu wa tacaala u dejiyey si uu u sii jiro bani aadamka una camiraan dhulka. Waayo haddii dabcigaas iyo isqurxintaas aan lagu abuuri lahayn dumarka, ma aysan soo jiidan lahayn ragga. Markaasna waxaa meesha ka bixi lahaa in la isguursado oo la tarmo. Arrinta saddexaad ee ah in dumarku ay daneeyaan ragga wax ka badan intay raggu daneeyaan dumarka. Taasna waa mid u laabanayso abuurkoodii hore, sababtoo ah Allah subxaanahu wa tacaala Xaawo wuxuu ka abuuray feerta Nebi Aadam. Taasna la yaab ma lahan. Laanta marka loo fiiriyo geedka waa qayb ka mid ah geedkaas, balse geedka marka loo fiiriyo laanta wuxuu u yahay wax walba. Laakiin Allah subxaanahu wa tacaala daneyntaas uu ku abuuray dumarka wuxuu ku daboolay xoogaa is-adkeyn iyo kibir ah oo uu siiyo dumarka. Waxaa laga yaabaa gabadha dabeecaddeeda kore inay xoogaa adag tahay, balse gudaheeda uu ku jiro rabitaan aad u badan. Saxaabiyadda, Nabiga sallallahu calayhi wasallam islaantaas ugama sheekaynin inuu wax ka sheego iscarfinteeda iyo isqurxinteeda, waayo arrintaas waa wax dabci ahaan uga abuuran dumarka. Wuxuu uga sheekeeyey inuu kuu caddeeyo quruxdaas iyo iscarfintaas meesha looga baahan yahay iyo meesha aan looga baahnaynba. Sababtoo ah dumarka waxa ay ragga ku sameeyaan waxa uu dabka ku sameeyo oo kale xaabada. Sidaas awgeed Allah subxaanahu wa tacaala dumarka wuxuu amray inaysan soo bandhigin quruxdooda, waayo dhibka oo laga dheeraado ayaa ka sahlan in la xaliyo marka uu dhaco kadib. Hooyadeen iyo aabaheen markuu Allah subxaanahu wa tacaala dejiyo jannadiisa, waxa uu ku yidhi yaan loo dhowaan geedkaas. U fiirso, waxaa laga reebay inay cunaan oo keliya, laakiin waxaa lagu yidhi ha u dhowaanina, sababtoo ah in loo dhowaado waxay keenaysaa in la cuno. Allah subxaanahu wa tacaala ma dhihin yaan la zinaysan, wuxuu yidhi yaan loo dhowaan zinada. Wuxuu reebay wax walba oo sahlayo zinadaas. Tusaale, rag iyo dumar inay isdhex yaacaan oo kale sabab la'aan. Dumarka inay quruxdooda ku muujiyaan ragga agtooda. Diinteena Islaamka ah waxay xarimtay wax walba oo keeni karo in lagu dhaco xaaraan. Saxaabiyadda, diinta Islaamka ah kama soo horjeedo inaad noqoto mid qurxoon. Su'aashu waxay tahay yaa isku qurxinaysaa. Wadooyinka oo la isku qurxiyo waa dembi, laakiin guriga inaad isku qurxiso ajir ayaa ku helaysaa. Islaamku wuxuu rabaa inuu ku ilaaliyo adiga. Alwaaxii ee samaysatay naagtii reer Bani Israa'iil ahayd wuxuu la mid yahay maanta kabaha dhaadheer oo kale. Faraantiga ay ka soo buuxisay miskigana wuxuu la mid yahay catarka aad taqaano maanta ee dharka aad marsato. Qaabkooda ayaa kala duwan, laakiin natiijadoodu waa mid.
Islaamku ma ahan mid ka soo horjeeda dumarnimadaada, ee wuxuu ka soo horjeedaa inaad noqoto sida alaab suuqa lagu xaraashayo oo kale. Sidoo kale, kama soo horjeedo Islaamka inaad noqoto gabar aad u qurxoon, ee wuxuu ka soo horjeedaa inaad noqoto mid si fudud lagu heli karo. Allah subxaanahu wa tacaala xaasaskii nabigeena sallallahu calayhi wasallam oo ahaa hooyooyinka mu'miniinta, sidoo kalena ahaa dumarka kuwa ugu sharafta badan, ayuu ka reebay inay jilciyaan hadalka, iyaga oo la noolaa xilligaas ragga kuwooda ugu sharafta badan oo ahaa saxaabada nabiga sallallahu calayhi wasallam. Arrinta loo reebayna waxay ahayd in la ilaalinayo dumarkaas, lagana hortagayo xumaanta. Ha shidin dib aad noqonayso adiga qofka ugu horeeya ee ku gubanayo. Ninkaaga markaa la joogto waxaa noqotaa dumar, nimanka kale markaa la joogtana waxaa noqotaa sida rag oo kale. Ninkaaga markaa la joogto waxaa noqotaa dumar, nimanka kale markaa la joogtana waxaa noqotaa sida rag oo kale.